السلام عليكم صاحبي halkani waa Caasim Media kusoo dhawaada qisadii Hodan iyo Haruun qaybteedii sagaalaad. Haruun mar dambe kuma soo laabanin Hodan xaggeeda oo subaxdii shaqadiisa ayuu aadaa duhurkiina wuu ka soo baxaa gurigiisa ayuuna aadaa. isbuuc kadib gabadhii yareed ee Haruun dhalay oo 10 jir ah ayaa markii iskuulka laga soo daayay waxay soo martay shirkadii Hodan waxayna ka codsatay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda in uu geeyo xafiiska Hodan waxayna u sheegtay in ay habaryartay tahay oo ay doonayso in ay la kulanto. Hodan ayaa isweydiisay gabar aan habaryar u ahay maba aqaane tolo waa tuma gabadha isoo raadisay maanta. Waxay ku tiri shaqaalaha gabadha bal isoo fasaxa aan arkay. gabadhii yareed ayaa Hodan kula kulantay xafiiskeeda waxayna u sheegtay in ay tahay Haruun gabadhiisa oo ay doonayso in ay wada hadlaan. gabadhii in Haruun ahayd waxay aad ula yaabaneen sida ay isugu egyihiin Nuure iyo habaryarteed Hodan oo iyada soo korisay maadaama ay sawiradeeda haysato oo xataa boorsadeeda iskuulka ay ugu jiraan. gabadhii ayaa ku tiri Nuura ma ogtahay in aad u eg tahay habaryartay Hodan. Nuura ayaa waxa ay ku tiri Hodan waa tuma. gabadhii ayaa ku tiri waa aabahay xaaskiisa oo waa hooyaday walaasheed oo ay ilma adeer yihiin. hooyaday markay i dhashay ayay geeriyootay waxaana isoo korisay habaryar Hodan. gabadhii ayaa boorsada ka soo saartay mid ka mid ah sawiradii Hodan waxa ayna ku tiri sawirkani waa sawirkeeda bal fiiri sidaad iskugu egtihiin. Nuure intay yaabtay ayay tiri macquul ma ahan sidee ilaa iyo xadkaan isugu ekaanay gabadhan. gabadhii ayaa ku tiri aabbo wuxuu ku moodayay inaad tahay Hodan laakiin markuu xaqiiqsaday inaadan ayada ahayn waxaa ka burburtay rajadiisii aheeday inuu helayo habaryar Hodan. habaryar Hodan waxaa la waayay 6 sano ka hor aabahayna ilaa iyo waqtigaasi wuu raadinayaa halka ay joogto. aabe ayaa maalin hore ii sheegay in ay rajadiisa u rumoowi rabto oo uu arkay habaryar Hodan oo ah gabar ganacsi leh. wuxuu i tusiyay fiidiyoo laga duubay xafladii ganacsatada ee aad ka qodbeysay oo aad ayuu u faraxsanaa. balse hadda wuxuu ku soo laabtay murugidiisii wuxuuna ii sheegay inaad tahay Nuura oo aadan ahaynin habaryar Hodan. Hodan ayaa dareentay in ay dambi gashay oo ay nin miskiin ah oo xaaskiisa sanado badan raadinayay dharbaaxo ku dhufatay. gabadhii ayaa ku tiri habaryar aabahay wuu murugaysan yahay waxaan kaa codsanayaa inaad garab istaagto oo aad bannaanka u soo bixiso waayo qolka kama soo baxo shaqadana saacado yar ayuu aadaa. waxaan kugu imaaday inaad ka qafiifiso murugada haysata aabahay. Hodan ayaa sheeko dheer kadib ka ogolaatay dalabkii gabadha yar waxayna ka qaadatay ciwaankii guriga waxayna go'aansatay in ay soo raali geliso Haruun oo ay ka codsato cafis. Hodan ayaa guriga Haruun soo martay galabtii marka ay shaqada ka timid balse guriga albaabkiisa kore marka ay timid ayay wax walba noqdeen wax ay garanayso oo kale. waxaa albaabka ka furtay maamadii guriga oo inta ay naxday afka qabsatay. laakiin gabadhii yareed ayaa ku tiri hooyo kuma sheegin miya Nuure inay noo imaanayso maanta. maamadii waxaa indhaheeda ku soo istaagay ilin oo waxay la noqotay inay gabadheedii Hodan soo hor istaagtay balse waxay isla markiiba maqashay gabadha yar oo dhahaysa hooyo waa habaryar Nuura maanta inay inoo imaanayso inaan kuu sheegay ayaan moodayay balse waan kaa iloobay. Hodan markay ka soo dhaqaaqday albaabka ayay indhaha isku qabatay oo waxa ay qiyaastay guriga gudihiisa sida uu u yaalo iyo meelaha loo leexanayo sida qolka fadhiga dhanka ay ka jiraan qiyaasteedana run ayay noqonaysay. Hodan oo isleh gurigaani asagoo kale inaan hadda ka hortagay ayay ila tahay ayaa fariisatay qolka fadhiga waxaana si fiican u soo dhaweeyay maamada iyo gabadheeda. wax yar kadib gabadha yar ayaa gacanta ka qabatay Hodan oo u waday dabaqa kore si ay ugu geyso aabaheed Haruun. gabadhii waxay geysay albaabka qolka aabaheed oo waa ay ka soo laabatay. Hodan ayaa garaacday qolka Haruun waxayna maqashay soo gal. Hodan waxay gashay qolkii Haruun waxa ayna aragtay asaga oo kaligii sariirta fadhiyo oo fikirayo iyada oo isweydiinaysa sida uu qalbigeeda u siiyay in ay u gacan qaado isaga ayaa waxay u soo dhaqaaqday dhankiisa waxayna salaan kadib soo fariisatay sariirta dhinaceeda. Haruun waxay ku noqotay lama filaan oo marnaba ma uusan filanaynin in ay Hodan imaan doonto gurigiisa mana uusan filanaynin in ay mar dambe kulmayaan. Hodan ayaa weydiisay Haruun xaaladiisa wuxuuna u sheegay in uu fiican yahay. Hodan ayaa u sheegtay in ay gabadhiisa u soo sheegtay waxa jira oo ay gurigana u soo tilmaamtay waxayna raali gelin siisay Haruun oo ay ku dhahday
iga raali noqo walaal, aad ayaan ugu xumahay wixii dhacay. Waan qaldamay, waxaan kuu haystay qof doonaya inuu been igu soo dhawaado. Waxaan kaa codsanayaa inaad iga raali noqoto. Haaruun ayaa ku yiri, dhib ma lahan, aniga ayaa xadkayga soo dhaafay, waana kaa raaligelinayaa midaas. Hodan ayaa ku tiri, maya, aniga ayaa ku raaligelinaya ee isaamax. Haaruun ayaa wuxuu ku yiri, raalli waan ahay, waana ku mahadsan tahay booqashadaada wacan. Waxaa la jooga xilligii aad gurigaaga aadi lahayd, nakeen hoos aan aadne. Hodan iyo Haaruun waxay ka soo baxeen qolka, waxayna u soo degeen hoos iyo dhankii maamadii iyo gabadhii yareed si ay u sagootiso ayaga. Waxayna Hodan ka sii baxday guriga si ay u aado gurigeeda. Hodan waxay isku dayaysay maalin walba in ay galabtii sii marto guriga Haaruun si ay gabadha yar iyo ayeeyadeed oo ciidla ah waqti ula qaadato. Haaruunna ay isku daydo in ay la saaxiibto oo ay ka bixiso xaaladda aamusnaanta ah ee uu ku sugan yahay. Hodan waxay intaasi sii ogaanaysay qisada Haaruun iyo iyada dhex martay oo waxaa uga sheekaynaysay maamadii iyo gabadha yar. Halkaa ha inoo joogto qaybtii 9aad. daawade haddii aad ka heshay qisadan ha iloon inaad muuqaalkan like saarto. nagu soo biir haddii aad channelka cusub tahay oo subscribe taabo. tan intaan kulmayna qaybta 10aad ee qisada. sidaas iyo nabadgelyo.